السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiiran ee English Learning Furnace qaybtiisa YouTube-ka. halkaas oo aad ku barataan barnaamijyada kala duwan ee luqadda Ingiriiska ku saabsan sida kelmado, practice, wada sheekaysi, topic-yo, mowduucyo iyo barnaamijyo kala duwan aan daily u soo dhigno bartaan YouTube-ka. haddaba subscribe noo sar haddaad noogu cusub tahay. haddaad hore noogu saarnayd qalbiga ka ogsooni Allah ku sharfo. haddaba videogan si arday badan u gaadho isla markaana ka faa'iida like noo saar in badan oo like saarto videoga waa in badan oo kanalkeenu kor u kacayo isla markaana ardaydu ay ka faa'iideysanayso casharaanta aan daily u soo dhigno. waa aniga Abdulsaam Muuse Axmed Abdisaadhiirane. insha Allah maanta waxaanu qaadan doonaa topic about health is wealth. caafimaadku waa hanti. topic about health is wealth. caafimaadku waa hanti. health is wealth. caafimaadku waa hanti. waayahay waxaanu iska bilaaban doonaa a health man qofka caafimaadka qaba. a health man qofka caafimaadka qaba is the one worker who kaasoo suffers aan la dhibaatoon from no illness wax xanuun ah. suffers aan la dhibaatoon from no illness wax xanuun ah ahayn. has no pain or aches aan xanuun iyo xanuun toona lahayn. has no pain or aches aan xanuun iyo xanuun toona lahayn. and has enough vitality leh firfircooni ku filan. and has enough vitality leh firfircooni ku filan. enough vitality waa firfircooni ku filan, yacni markuu qofku leeyahay firfircooni ku filan. waayahay aan kusoo celiyo a health man qofka caafimaadka qabaa. a health man qofka caafimaadka qabaa is the one worker who kaasoo suffers aan la dhibaatoon from no illness wax xanuun ah. who kaasoo suffers aan la dhibaatoon from no illness wax xanuun ah. has no pain or aches aan xanuun iyo xanuun toona lahayn. has no pain or aches aan xanuun iyo xanuun toona lahayn. and has enough vitality leh firfircooni ku filan. and has enough vitality leh firfircooni ku filan. and has enough vitality leh firfircooni ku filan. waayahay health caafimaadku is the most important thing waa shayga ugu muhiimsan. a health caafimaadku is the most important thing waa shayga ugu muhiimsan in life nolosha. waayahay it is caafimaadkiye it is more expensive aad buu uga qaali yahay. it's more expensive aad buu uga qaali yahay than the money lacagta and gold iyo dahabka. yacni waxa lagu leeyahay caafimaadku aad buu uga qaali yahay marka la barbar dhigayo lacagta iyo dahabkaba. yacni caafimaadku qofka aan caafimaad lahayn waa qof lahayn wax vitality firfircooni qofkaasi ma leh. yacni wuxuu ku leeyahay health caafimaadku amba it waxa u taagan caafimaadkiye health caafimaadku is more expensive aad buu uga qaalisan yahay. it's more expensive aad buu uga qaalisan yahay than the money marka lacagta loo barbar dhigayo amba than the money marka lacagta la barbar dhigayo and gold iyo dahabkaba aad buu uga qaali yahay. waayahay without health caafimaad la'aan it is impossible suurtagal may ahaateen to lead in lagu noolaado a comfortable life nolol raaxa leh. comfortable waa nolol raaxa leh, yacni comfortable raaxa leh. marka life la raaciyo waa comfortable life nolol raaxa leh. yacni wuxuu ku leeyahay without health caafimaad la'aan it's impossible waxa suurtagal aan ahayn. it's impossible waxaana suurtagal aan ahayn to lead in lagu noolaado a comfortable life nolol raaxa leh. to lead in lagu noolaado a comfortable life nolol raaxa leh. waayahay aan ka sii soconno if you are sick haddii aad xanuunsanayso. if you are sick haddii aad xanuunsanayso and feeling aad dareemayso unwell caafimaad la'aan. and feeling aad dareemayso unwell caafimaad la'aan. you are worried waad murugootaa. you are worried waad murugootaa. you are worried waad murugootaa and disappointed waana niyad jabtaa. and disappointed waana niyad jabtaa. and disappointed waana niyad jabtaa. waayahay therefore sidaa daraadeed since maadaama health
caafimaadku health caafimaadku is important thing uu yahay shay magaranaysa muhiim ah maadaama health caafimaadku uu yahay important thing shay muhiim ah everyone qof kasta of us oo inaga naga mid ahi must attempt waa inuu isku dayaa to be health inuu caafimaad uu ku dadaalo yani waa inuu qof kasta inaga naga mid ahi waa inuu isku dayaa to be health inuu caafimaadkiisa uu ku dadaalo isla markaana uu dhowro how can be health sidee baa caafimaad loo noqon karaa how can be health sidee baa caafimaad loo noqon karaa haddaba su-aasha mudan waxa weeyaan how can be health sidee baa caafimaad loo dareemi karaa amba loo noqon karaa way by following ina kor raacayna certain rules sharciyadan caadiga ah those kuwaasoo are needed looga baahan yahay for health care in caafimaadka lagu daryeelo way by the following certain rules ina kor raacayna sharciyadan caadiga ah those kuwaasoo are needed looga baahan yahay for health care in caafimaadka lagu daryeelo you should make it a habit waa inaad caado ka dhigataa to rise early inaad xilli hore kacdo aad kacdo in the morning subaxdii as English profile goes maamaha English yaa tiraahdaa early to bed xilli hore sariirta la tago amba early to bed xilli hore la seexdo and early to rise iyo xilli hore la soo kacaba makes a man waxay qofka ka dhigtaa health mid caafimaad qaba wealth mid hanti leh isla markaana magaranaysa barwaaqo ku jira and wise iyo mid aqli badan yani habeenkaad xilli hore seexato iyo habeenkaad xilli dambe seexato aad bay u kala duwan yihiin aroorta waxaad dareemaysaa nashaad iyo firfircooni iyana tahay qof magaranaysa dadka ka horeeya waayahay maamaadan waxay ku leedahay early to bed xilli hore oo sariirta la tago early to bed xilli hore oo magaranaysa la seexdo and early to rise iyo xilli hore oo la soo kacaba makes a man waxay qofka ka dhigtaa health mid caafimaad qaba wealth mid magaranaysa barwaaqo ama nashaad ku jira and wise iyo mid aqli badan isla markaana dadka in badan ka horeeya also sidoo kale a nourishing date cuntada nafaqada leh is essential waa muhiim and plenty of water iyo biyaha badanba should be drunk waa in la cabaa at regular intervals waqtiyo joogto ah also sidoo kale a nourishing date cuntada nafaqada leh is essential waa muhiim and plenty of water iyo biyaha badanba should be drunk waa in la cabaa at regular intervals waqtiyo joogto ah haddaba insha Allah maanta halkaas inoogu joogi doonaa subscribe ha naga iloobin aad baad mahadsantahay sida fiican noo dhageysatay